isla helitaanka jaanta bilicsiga dareeska darajooyinka lagu xardhay deganaanta iyo amniga sugan ee Jubbaland ayaa maanta saamaxay in ciidamada booliska Jubbaland ay socod dheer ku maraan wadada laamiga ee Kismaayo xilliga ay ku guda jireen xuska sanad guuradii 73aad ee ka soo wareegtay markii la aasaasay booliska Soomaaliyeed. saaka xilli hore ayaa cutub kamida booliska Jubbaland waxay socod ka bilaabeen saldhigga dhexe ee magaalada Kismaayo waxayna ku tageen garoonka kubadda cagta ee magaalada Kismaayo ee Wamo halkaasi oo loo asteeyay in lagu qabto munaasabada. intii ay ciidanku marayeen wadada ma jirin wax cabsi ah iyadoo ay caadi ahayd isku socodka dadka iyo gaadiidka ee magaalada Kismaayo. kadib munaasabad balaaran ayaa lagu qabtay garoonka kubadda cagta ee Wamo. madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland, taliska ciidanka Jubbaland iyo kan booliska iyo mas'uuliyiinta maamulka degmada Kismaayo ayaa munaasabada ka soo qayb galay. munaasabada oo qabanqaabadeeda waqti badan la galiyay ayaa ugu horeyn waxaa ka hadlay gudoomiyaha degmada Kismaayo Ibrahim Maxamed Yuusuf Timajile wuxuuna ku dheeraaday ka hadalka muhiimada ay leedahay maalintan. kala qayb galayna maanta xafladda wanaagsaneed 73 guuradii booliska Soomaaliyeed oo aynu maanta xusayno waxaan u hambalyeeynaa anoo ku hadlay magaca degmada Kismaayo maamulkeeda iyo shacabkeedaba waxaan u hambalyeeynaa booliska Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan kan Jubbaland oo maanta loo dabaaldegayo sanad guuradii 73aad ee ka soo wareegtay asaaskooda. waxaan leenahay hambalyo saraakiishiina saraakiil xigeenka dableyda iyo xaasaskiina iyo ciyaalkiina waxaan leenahay hambalyo. taliyaha booliska gobolka Jubbada Hoose Korneel Xasan Qeyre iyo Generaal Yuusuf Cismaan Dhuumaal oo kamid ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa dhankooda ka hadlay muhiimada ay leeyihiin ciidanka booliska. sanad guurada 73aad ee booliska Soomaaliyeed aasaaskiisii oo maanta ciidankan booliska Jubbaland ay xuska qaybtoodii ka qaateen. ciidanka booliska Jubbaland wuxuu hiigsanayaa in uu takhasusyadii booliska Soomaaliyeed u lahaa ee hogaamada kala duwan ee ilaa 14 iyo ka badan ahaa inuu takhasusyada u hiigsanayaa. ciidanka booliska Jubbaland difcadii koowaad waxay noo soo baxday 23 bishii shanaad 2016 difcadii labaad ciidanka booliska Jubbaland wuxuu difcadiisii labaad dugsiga nooga soo baxay 3 bishii tobnaad ama October 2016 ciidanka muddada yar uu joogay waxaa la siiyay koorsooyin yar yar ah oo takhasusyadii booliska hogaamada ka mid ah. waxaa ka mid ahaa CID oo federaalka ay noo soo direen niman macallimiin ah 30 askari 30 cashaa la tababaray. kooxda banda musico oo hadda aad arkaysaan qalabkeedina qaarna heshay qaarna weli u dhiman yahay ayadana isla tababarkaas macallimiintii noogu timid macallinka haddaba hortaagan baa ka mid ah sidii uu tababarka ugu wadaa. ciidankaas oo haddana tirsigooda yahay 31 oo tiradoodana maartay in la sii badiyo aan rabno. madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo munaasabada soo xiray ayaa kula dardaarmay ciidanka booliska Jubbaland in ay bulshada u adeegaan. anoo ku hadlaya magacayga magaca madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland
dhammaan hay-adaha dowlad goboleedka Jubbaland iyo shacabka reer Jubbaland oo noo wakiishay inaan u adeegno waxaan idinkugu hambalyaynayaa sanad guuradan 20 bisha 12aad sanadkan 2016 baan laahay oo runtii 73 sano idiin ah baan hambalyo idinkugu soo gudbinayaa hambalyo munaasabadan maanta waa hambalyo ciidankii saaki diyaar garoobay oo intaa sameynayay dhoolatuska iyo muujinayay sharafta ciidanka booliisku leeyahay oo kooxda baambayda muusikada ay maanta magaalada dareen weyn ku abuurtay soo dhaxmartay 20kii bishii Diseembar ee sanadkii 1943 ayay ahayd markii la aasaasay ciidanka booliska Soomaaliyeed oo maanta jirsaday 73 sano. Boolisku waa u adeegaha bulshada kan Soomaaliyeedna waa hooyada ciidanka dalka Soomaaliyeed. Najma Ismaa Yusuf, Jubbaland TV, Kismaayo.